بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي هلكن وقالك ورarka qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga waxa qaybka taliyaha booliska gobolka Shabeellada Hoose oo ku geeriyooday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho mid ka mid ah taliyaasha farmaajo oo laga soo celiyay Kismaayo dagaalka farmaajo iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee ku aadan kuraasta ka imaanayso Jubbaland oo bilowday maamulka gobolka Banaadir oo shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maamul goboleedka Puntland waxay ku dhawaaqeen natiijada imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga dagaalka kuraasta ku aadan xildhibaannimo ee maamul goboleedka Jubbaland oo markaasi bilowday daawadayaal intaasi waxay noqonayaan qaar kamid ah qodobadii ugu door corona warkayaga halkan waa galka wararka hadii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay waxaynu si rasmi ah kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furto daawada si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada iyo barnaamijyaadka halkan aan idinkugu soo gudbino ugu horeyn warkayaga waxaynu ku bilaabi doonaa mid ka mid ah taliyaasha farmaajo ayaa laga soo celiyay garoonka Kismaayo waxa sidaas oo kala soo ifbixaya in markaasi si rasmi ah uu u bilowday dagaalka markaasi ku aadan kuraasta Kismaayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidaas oo kale madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo oo xarun ah dawlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegaya in saaki garoonka diyaaradaha ay Kismaayo laga celiyay Cabdi Cali Raage oo ah shakhsi si weyn markaasi ugu dhow madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saraakiil sare oo ka tirsan garoonka Kismaayo ayaa waxay noo sheegeen in Cabdi Cali Raage lagu celiyay amar ka soo baxay madaxda sare ee Jubbaland kadib markii uu diyaarad ka soo raacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Cabdi Cali Raage oo markaasi kal hore soo noqday la taliyaha sare ee madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa muddooyinkii dambe uu khilaaf xoogan kala dhaxeeyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kadib markii uu ku dhawaa isla markaana saaxiib dhow la noqday madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa la rumaysan yahay in Raage uu qayb ka ahaa xubnihii udub dhaxaadka u ahaa khilaafka federaalka iyo sidaas oo kale dawlad goboleedka Jubbaland ee markaasi kala dhaxgalay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidaas oo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa iyo haatan si rasmi ah looma oga sababta Cabdi Cali Raage looga celiyay garoonka diyaaradaha Kismaayo waxaana xusid mudan in wali ay xiisad kala dhaxayso madaxda sare ee maamul goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo oo xarunta dawlad goboleedka Jubbaland waxa ku sugan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble halkaas waxa uu joogaa arrimo dhowr ah oo markaasi qayb ka tahay xalinta arrimaha khilaafaadka iyo sidaas oo kale sidii markaas loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka isaga oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maanta markaasi ka qayb galay kulanka golaha wasiirada ee dawlad goboleedka Jubbaland furitaanka kulankaas ayuuna qayb ka ahaa geesta kalena Cabdi Cali Raage waxa uu markaasi sheegay in markaas uu aad kaga xun yahay in laga soo celiyo garoonka diyaaradaha ee markaasi Kismaayo waxa uuna tilmaamay in markaasi xaq uu u leeyahay in halkaasi uu ka dago maadaama uu yahay musharax u taagan xilka xildhibaannimo waxa uuna sheegay in markaas ay qasab tahay maadaama uu ka imaanayo Jubbaland in markaasi ay qasab ku noqonayso in halkaasi uu gaaro waxa uuna sidaas oo kala tilmaamay tani inay noqonayso wax laga xumaado maadaama laga soo celiyay garoonka Kismaayo markana gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir ayaa si rasmi ah u shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka 8aad gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa xarunta aqalka dawladda hoose ee xamar kaga qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad dugsiyada dhexe ee gobolka Banaadir sanad dugsiyeedka 2021 imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee sanadkan ayaa waxa uu fariistay arday markaasi gaaraysa 25800
85 iyada oo markaasi lagu galay 72 xarumood oo hoos yimaada gobolka Banaadir wadarta guud ee imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee gobolka Banaadir ee gudubtay ayaa waxaa lagu sheegay 24198 oo markaasi isugu jira 10275 dumar ah iyo sidaas oo kale 13923 rag ah waxaana dhacay arday isla markaana qaybka ardayda gobolka Banaadir 1687 arday sidoo kale agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay 13 arday ee kaalmaha ugu hor ka galay imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad sanad dugsiyeedka 2021 gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan ardaydii u fariisatay imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2021 isaga oo ardayda markaasi gudubtay iyo kuwa hartayba ku amaanay dadaalka ay muujiyeen waxa uuna kula dardaarmay in markaasi lagu dadaalo waxbarashada si bulshada markaasi ay u noqdaan kuwa aqoon leh oo markaasi jahliga la dagaalama waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo maamulka gobolka Banaadir uu qaadayo imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ee waxbarashada gobolka Banaadir geesta kalena maamul goboleedka Puntland waxa ay markaasi si rasmi ah u shaaciyeen natiijada imtixaanka fasalka dugsiga sare waxayna sidaas oo kale maanta ku dhawaaqeen ardayda kaalmaha hore ka galay markaasi natiijada imtixaanka iyadoona markaas sidaas oo kale ay shaaciyeen in arday dhowr ah oo qayb ka ah ardayda markaas imtixaanaadka ka qayb galay qaar kamid ah ay dhaceen waxayna sidaas oo kale bogaadin u jeediyeen qaar kamid ah ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee markaasi maamul goboleedka Puntland uu markaasi si rasmi ah ugu dhawaaqay iyaga oo ammaan iyo bogaadin u jeediyay ardayda ugu badan ee markaasi imtixaanka qayb ka noqday waxayna sidaas oo kale maamulka Puntland ay ku dhawaaqeen in qaar kamid ah ardaydii markaas waxbarashada ardaydii markaas imtixaanaadka kaalmaha hore ka galay ee natiijada fiican keenay isla markaasna ay sheegeen in markaasi ay yihiin kuwa sidaas oo kale kuwa laga qaadi doono imtixaanaad dheeri ah haddii imtixaanaadkaas ay ku baasaanna markaas ay noqon doonto in waxbarasho dibadda ah markaas loo raadiyo markana booliska gobolka Banaadir ciidanka gaarka ah ee booliska gobolka Banaadir ayaa waxay wadaan howlgallo gaar ah kuwaas oo markaasi ay ku baacsanayaan kooxo burcad ah oo xilliyada habeenkii ah dhac ka geysto maalmihii aynu ka soo gudubnay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa ku soo badanayay kooxaha xilliyada habeenkii ah dhac geysto isla markaana dhibaateeyo dadka rayidka ah labadii habeen aynu ka soo gudubnay ciidanka booliska gobolka Banaadir iyo sidaas oo kale ciidanka booliska degmada Kaaraan waxa ay soo bandhigayeen kooxo burcad ah oo ay ku sheegeen in markaasi xilliyada habeenkii ah ay dhac ka geystaan qaar kamid ah xaafadaha dhaca degmooyinka gobolka Banaadir waxayna ku tilmaameen in ay sii wadi doonaan baacsiga kooxahan ilaa iyo markaas ay ka soo afjari doonaan sida ay hadalka u dhigeen kooxahan xilliyada habeenkii ah dhaca ka geysta sidaas oo kale waxa markaas ay maanta soo bandhigeen ku dhawaad 3 ruux oo markaasi ay ku sheegeen inay qayb ka ahaayeen kooxihii markaasi dhaca ka geysan jiray qaybo badan oo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxayna u gudbiyeen xarunta dambi baarista ee CID-da sidaas oo kale booliska gobolka Banaadir ayaa toogtay nin ay ku sheegeen inuu dili rabay askari ka tirsan ciidanka booliska dilkan ayaa ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir iyada oo warbaahinta loo soo bandhigay ninka markaas ciidanka ay sida gaarka ah u toogteen maalmihii aynu ka soo gudubnay ayay wadeen baaritaano dhowr ah oo markaasi ku aadan kooxaha burcadka ah oo xilliyada habeenkii ah dhac ka geysta kooxahan ayaa inta badan waxa ay markaasi dhac ka geystaan degmooyin dhowr ah oo markaasi dhaca degmooyinka waqooyi ee gobolka Banaadir howlgalladii ugu dambeeyay ciidanka booliska waxay ka sameeyeen degmada Kaaraan waxayna kaashanayeen maamulka degmada howlgalkan amniga lagu xaqiijinayo waxay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay waaxda jamhuuriyadda degmadaasi Kaaraan howlgalka ayaa mas'uuliyiinta maamulka degmada Kaaraan waxa ay markaasi ku soo qabteen
burcad hubaysan oo dhac u geysan jiray bulshada degmada Kaaraan iyo sidaas oo kale dadka rayidka ah. Ragga burcadka ah ayaa waxay wateen mooto bajaaj iyo sidaas oo kale qoriga loo yaqaano AK47 waxayna dadka shacabka ah ay markaasi ka dhacayeen moobelada waxayna dhammaan shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir ciidanka booliska gobolka u sheegeen in markaasi ay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago kooxaha burcadka ah ee xilliyada habeenkii dhaca ka geysta qaybo badan oo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir. daawadayaal guud ahaan warkii waad kala socoteen galka wararka waa naga intaa waad ku mahadsan tahay booqashada barteena YouTube ee galka wararka waynu kaaga mahad celinayna sida mar waliba aad wararka iyaga ugu xirantahay halkan waa galka wararka.